dagaalka halka ka dhacay ka u dambay yimid hortoon midna aan weerarkeeda lahayn haddii naari hoose ama cadaawadi nagu jirto ama aan diyaar goosanayno dee maxaabiista taageerna lama soo dhiibeen dhaawac dhiigna looma shubeen ninka dhaawaca gelikii daba laga helay meeshii dagaal ka dhacay isagoo dhiig baxay oo nafa waa la badbaadiyay dhiig baa loo shubay laasud baa aniga lagu keenay 10 habeenimo koob 10 waxa ku wareejiyay maamulka oo aan ku wareejin daktarka cirgaabo futus hadda riyaala waxaan leeyahay arrinta maamulka sifaha uu ku yibi maamulka waxa dhacay dagaalka dhacay maamulka anaga ugu yeedhay maxaabiista inaan ku wareejino maxaabiista lagu wareejiyo waayeelka halka ka hadlay dadka waxaan jirin u sheegaya waxaan leeyahay ka daaya dadka kicinta anagu mar raba maana gacan sayrin oo kuma cidda kuma gacan sayrin nabadgelyo haddana weerar manihin ciidanku wuxuu joogaa iyo raggu wuxuu joogaa meeshii deegaankoodii bay joogaan oo ay ku sugan yihiin ciddii soo weerartay dawlad iska difaacay tigirka buu ku soo fasaxay wuxuuna u diray warqadda tan oo ay ku socotaa oo amar ku siinaya taliyaha saldhigga booliska ee gobolka bari iyo taliska ciidanka qow fadhiya waa laba gaari oo tigirka ayuu fasaxaya warqadaas ay fasaxaysa in ciidankaas ku socdo shidan wata kow baabuurka wanaaj wade cabdirasaaq hiirad cali wuxuu u socdaa shidan baa ku qoran laba baabuurka wanaaj wade cali maxamed axmed wuxuu ku socdaa waxaana ku rakiban qori dhashiika wuxuu u socdaa shidan halka waxa ku ka sii hooseeya waxa saaran 20 nin oo ciidan ah nin oo sita 18 qori sita iyo 3 qori oo kii tirad la ahaa ee lagu dagaalami jiray argagaxisada waa hubkii dawlad maamulku Puntland ciidankaas oo ka socda tigirkaas waxa la hayaa diriskoodii waxa la hayaa hubkii laga qabtay baa la hayaa haddii maamul jiro maamul cid ku lug leeyahay waxa ku lug leh maamulka Puntland xaggooda waxaan cadeynaynaa anagu maamulka halka jooga ciidanka militariga dee muuse jaalac baa xukuma waa nin warsagelaya waa jarankaas ay xukuma isaga la weydiiyay hadduu ciidan u raro halka ka dagaalama isaga u jooga ninkana waxay taagan tahay reeroweys qabtaan waxay weedhanayaan heshiiyaan laakiin dawladda Puntland waraaqeeda leedin tusayay ayaa arintan ka dambaysa inta iyadu ku jirtona reeraha heshiiskoodu socon maayo anagu reerkan mar la yiraahdo iska baday deris baanu nahay dad gaalaanu nahay kolley waxay weedhada kii weynaaba laga heshiiyo waa la heshiin doona laakiin dawladda Puntland
الدولة نمد الشيغانيسا أيها دباتاً كدن بيسا دولة ووراغي دي يسراكيش دي يدوب من تيه دي والله هيو دايمك أتكلم صار مهم أتكلم غيرو ويشيان وانا إسديان إياهم ويسمعنا يغاني لكن الدولة دي دولة كودو دولة تاكيل مايو دولة الصومال اللينا ويؤكتها إذا كيدو يبو فرديا والله وورهيان waxay weyn dhaqarsanayeen waxa halkayga ku soo gabagabeynaya hadii dalka labada reer la isu daayo geeri kasta ha dhacdo dhib kasta ha dhacdo wixii ka doona ha yimaadeen way heshiin doonaan laakiin meel dawlad ku jirto dawlad iyo shicib ma heshiin karaan dawlad iyo shicib ma heshiin karaan hadalkaa waxaan ku soo gururuf siinaya oo aan kaga baxaya hadii aan dawladda Soomaaliland ee u dhigan dawladda Puntland iyo labada dawladood aanay meesha ka wada hadlin ama isku dilin yaa arrinta hagaagmayso wax gaagaagaya ma jiraan saacadan waxna loo soo waramaya saacadan aan halka fadhiyo waxna la leeyahay 18 technical la soo dhaafay waxa wata waa dawladii 18 technical baa la soo dhaafay indinkaana loo sheegaya annaka waa socode shacayska ma hayno maxaabiista aan u dhibnaynaga qabatay mooyaan hadalkii waxaan kaga tegayaa islaamayna maqal ya ha dadkaa waanu ogolaanay dhiiggii baa dhaawacoodii loo shubay meydkii baa la aasay hadda halkaa lagu hayaa